waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa muuqaallo kuwa oo ku saabsan xaflado uu qabtay ururka daryeelka naafada gobolada dhexe, kuwa oo lagu dhiirigelinayay waxbarashada dadka naafada ah, laguna dareensiinayay dadka naafada ah inay wax baran karaan lana tartami karaan dadka qayrkooda ee addimada qaba. midda aan rabo naafada naftigeeda inaan ku baraarujiyo waxa ay tahay qofka naafada ah ma qabsan karaa mise ma qabsan karo. naafadeen waxaa ka dhaadhacsan inay gacmaha taagtaan oo keliya inay bini aadan sugaan, laakiin bini aadan gacantiisa laguma baahi baxo. waxa lagu baahi baxo waa gacantaada. haddaan wax yar usoo qaato halkudhig waxaan usoo qaadanay boorkan lugo ma lihi gacmo ma lihi laakiin rajo la-aan ma ihi. halkudhigaan waxaa qoran in Swedish ah. ninkaas gacmona ma laha lugana ma laha, maskaxdiisa ayaa u fiyow. qofka haddii maskaxda u fiyowdahayna wax walbuu qabsan karaa. waxa uu sameeyey ninkan waxbarasho bilaabay, waxbarashada uu dhammaystay kadib heer wuxuu gaaray inuu manager ka noqdo shirkad. waa manager, waa ka xumahay internet ma haysano guddiyadiisana idin tusi lahay. marka waxaa jirta hadda tusaale yar oo horteena idiin soo qaadanaya. cali waa nin naafa ah, wuu shaqaystaa, waa nin wariye ee saxaafadooda. dadka kale naafadana waxay baran karaan. dadka indhuhu ka maqan yihiin aqoontooda maanta waad garanaysaan in badan oo ka mid yihiin numberka ugu dambeeya oo darajaadka marka la qaadanayo excellentiga bay qaadanayeen dugsiyada ama jaamacadaha ayay qaadanayeen. waan ognahay taa waa xibno maqan weeyaan. sidoo kale dadka dhagahala maanta waxay marayaan inay jaamacada ka baxaan markii calaamooyinkii iyo astaamihii wax lagu fahamsiinaya bannaanka la soo dhigay. bismillahi raxmaan raxiim. kulankan waxaan u arkaa inuu yahay mid aad iyo aad muhiim u ah, isla markaana ka qiimo badan, kulamo badan oo had iyo jeer la qabto. waa ilaahay mahadiis haddii maanta laga hadlayo waxbarashada dadka naafada si sare lagu qaadi lahaa. waxaan ognahay duruufo kala duwan oo badan inay xilligan ku heeran yihiin dadka naafada ah. bulsho weeye naafadu haddaynu waxbarashiyo naawilaada waayaha niyad bira u yeeshaan dhaqsa naajaxayo ifka xubin ka noqon kara. bulsho weeye naafadu nijaarka iyo farsamada iyo nalka iyo xadiidka iyo intuu noola qaban karo midna aan ka noogino nuguurkoodu wacan yahay. bulsho weeye naafadu kulli nabadda jeceloo colaadiya ninkii wada ku nahyiyo xumaanto nadaa adigu oran kara. qalbigaa nugleyr ahe haddaan nuqulladiisii naxali kaa tirtirinoo nadiif laabti kuu tahay. noocyadaas dadka u siman hadduu naafo yahay iyo haddii uu ka nabad galay, nin kastiyo ninnimadiis, gabar iyo nabriirkeed, calafka iyo nasiibkiyo naxariista eebbiyo naruuradana loo siman. dhiirigelintaas iyo kuwo kaloo la mida markii uu sameeyey ururka daryeelka naafada gobolada dhexe, bulshadana uu qabtay iyo dadka naafadaaba kulamo lagu dhiirigelinayo dadka waxbarashada inay wax baran karaan, lana mid yihiin dadka kale oo addimada leh haddaysan uga fiicnayn. lama haddi waxa lagu guulaystay dad badan oo ka mid a dadka naafada inay ku biiraan goobaha waxbarashada, kuwa oo hadda heerkii dhexe ku jira oo waxbarashada qayb ka mid a, qaybana ay u gudbeen qaybihii sare ayagoo ka qalin jebiyey qaybihii dhexe. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.